subax wanaagsan waa shaha iyo sheeko qaybtiisii toddobaad. maanta waxaan rabaa inaan halkan ku soo qaado buug uu qoray qoraa maleysiyaan ahaa lana oran jiray sayid xuseen alcataas. sayid xuseen alcataas buuggan wuxuu qoray 1977. waxa uu ahaa brofesor jaamacada maleeshiya wax ka dhiga. buugga magaciisa waxaa la yidhaahdaa The Myth of the Lazy Native. The Myth of the Lazy Native baa la yidhaahdaa, oo noqonaysa sheekada kuturukuteenta ah ee muwaadiniinta caajiska ah. buuggan wuxuu ka qoray waxaa jirta aragti dadka kasoo kala jeeda far asia, wadamada gaar ahaan malaysia, indonesia iyo philippine oo kale. gumaysihii galay wadamadaas ee kala ahaa isbaanyoolka, dutchka iyo ingiriisku, dadkii ay u tageen oo dhulka lahaa waxay u bixiyeen magacyo, sida dadka malayga la yiraahdo oo malaysia u badnaa waxay u bixiyeen inay yihiin dad caajisa. dadka philippinka oo kale waxaa loo dad jilicsan oo karti lahayn inay yihiin baa lagu shaabadeeyey. dadka la yiraahdo jafada, reer jafa waa indonesiyaanka, waxaa la yidhi waa dad shaqada neceb. buuggan marka wuxuu baarahayaa aragtiyada noocaasa iyo asalkooda meeshay ka yimaadeen. brofesorku wuxuu leeyahay aragtiyahaas waxay ku qotomaan fikradihii gumaysiga. si uu dadka u gumaysto ayuu waxa uu abuuray dadkii uu u yimid inuu ka dhigo dadaan qiimo lahayn. mogta wuxuu si gaar usoo qaadanayaa ujeedada ugu weyn oo buuggan uu u qoray waxay ahayd inuu furfuro dabinadii gumaysigu uga tegay wadamada mid ka mid ah, oo ah bulshada laftigeeda in laga dhaadhiciyo inay tahay bulsho aan u qalmin nololba. mogta wuxuu leeyahay markuu soo qaado buugga aragtidan uu faalleynayo ama falanqeynayo, waa maxay aragtida ka dambaysa gumaysigu u abuuray waxyaabahan been abuurkan muxuu u sameeyey. waxa uu ku saleynayo marka wuxuu leeyahay been abuurkan iyo sheekooyinkan noocaana waxaa loo sameeyey in lagu sharciyeysto in dadka la xukumo. somaad arag, dadka muwaadiniinta waddanka loogu yimid baa waxaa sharci looga dhiganayaa in la xukumo. baa aragtida baa sheekooyinkan qoraaladan been abuurkan loo sameynayo. waxaa kaloo loo sameynayaa buu leeyahay in shaqaalo jaban la helo, laguna qasbo shaqada lagu qasbahayo waa shaqo gumaysigu asagu u adeegaysa si uu qiimo jaban dadka ugu helo. baa waxaa laga dhaadhicinaya dadka inay caajis yihiin, aan shaqaynayn. shaqaduna waa maxay? waa macdanta waddanka inuu la baxayo, xoolihii waddanka inuu qaadanayo, adiguna aada noqotid qofka u samaynaya. marka haddii aad ka damqatid waxaagii xoolahaagii, waxaa lagu leeyahay qofkana waa caajis, shaqadu necab yahay, qasab baa lagugu shaqaynayaa. xuquuqdii shaqada waad luminaysaa, xuquuqdii waddanka xoolahaagii la dhacaya waad luminaysaa. tii shaqada ama xoogaagii in lacag lagaa siiyana waa luminaysa. somaad arag, waayo waxaa tahay qof caajisa oo qof aan rabin shaqo, qof maaragtay. wuxuu kaloo leeyahay waxaa kaloo la adeegsanayaa intaa marka la waxeeyo, annagaaba waxaan rabnaa inaan shaqo ku barno. somaad arag, labada marka laga soo gudbo, qodobka saddexaad oo u adeegsanaya waxa weeye buu leeyahay in ma aragtay dadkan markii loo imaanayay
way noolaayeen, way shaqaysan jireen. waxay soo gaareen maalinta gumaysigu u imaanayo intii ku horreysay ganacsi bay lahaayeen, waxay lahaayeen beeray lahaayeen, waxay lahaayeen ilo ma aragtay dekado ama meelo ay wadamada dariska ay kula xirnaayeen. gumaysigu wuxuu u yimid marka wuxuu burburinayaa ilihii dhaqaalaha la burburinayaa, meelihii beerihii baa laga hor istaagayaa, waxaa laga hor istaagayaa suuqii ganacsiga ay samayn jireen oo dhan baa la baabi'inayaa. kadib waxa uu asagoo abuurtay baa dadkii lagu qasbahayaa inay ka shaqeeyaan. soomaad arag marka uu ka hadlayo dadka malayga oo kale, dadka malayga waxaa la sameeyey waa qodobka 4 oo buugga uu ku xusahayo. waxaa la sameeyey gumaysigu wuxuu la imaanayaa dad kale oo waddanka ku beeraya. mar waxaa la samaynayaa isla dadkii waddanka ku jiray baa la kala fadilahayaa. soomaad arag qaar baa la leeyahay kaalay qalinka qabo oo halkaa ba'da iyo sida loo qoro la barahayaa, kii kalena waa laga hor istaagayaa in ba'da iyo ta'da la baro. kii qalinka loo dhiibay waxaa laga dhaadhicinayaa kaas kale oo loo diiday inuu qalinka qaado inuu asagoo ka sarreeyo. soomaad arag waxaa la sameeyey marka dadkii leysiga lagu sheegayo oo caajiska, dadka caajiska oo malayga oo la leeyahay dadka maleeshiyaanka ah malay baa la yirahdaa. waxaa la sameeyey, waxaa laga durjiyey magaalooyinkii, waa dadkii waddanka lahaa, waxaa la iskugu geeyey dhul shisho oo fog. waxaa la keenay shaqaalo hindi u badan oo beerihii iyo shaqadii la geshay. waxaa la keenay Chinese warshadihii iyo ganacsigii ka shaqeeya. Malaysia 3 qowmiyadood bay ka kooban tahay. labadan qowmiyadood marka dabaqad sida la siiyey, dadkii waddanka lahaana waxaa laga dhigay dad hoose. Soomaalida oo laga ilaashay ganacsigii, laga ilaashay warshadihii, laga ilaashay beerihii ilaa dhul fog oo ergo aan la geeyey oo macal socodka loo aadayo meeshaas. waxaa laga baaba'shay ilahoodii dhaqaalaha, siday u noolaayeen, degmooyinkay iyo dhulkay deganaayeen baa laga raray, kuwo cusub baa loo aasaasay. Soomaalida dadka malayga marka waxaa soo baxday dabaqad sare oo Chinese oo ganacsiga waddanka haysata iyo dabaqad shaqaalihii waddanka noqotay oo hindi ah. ayagiina banaanka loogu daashay. marka wuxuu leeyahay sayid xuseen al-cataas wuxuu leeyahay aragtidan ma ahan kuwa lagu fuliyey wadamada uu sheegay dadka jaafada ama isheeg ama Filibiinka ama malayga. Soomaad arag laakiin aragtidaas gumaysigu meel walba oo uu galo uu ka sameeyey. hadday Afrika aan noqon lahayd, hadday ahaan lahayd, waxaad maqlaysaa in dad la leeyahay wadamada marka Middle East oo kale la soo galo waa dad dhig kulul, waa dad bahalkiya lagu shaabadaynayo, waa dad aan xadaarad lahayn, waa dad barbaariga bay ereygaas isticmaalaan. waxaana keenaysa waa dad u dagaalamay, ka dagaalamay waxaan lagu samaynayo, in dhulkoodii loogu yimid, xoog loogu shaqaystay, hantidoodii la qaadanayo, ayagiina hantidoodii la dhacaya ay ka ahaayeen dadka xamaalaya ka shaqaynaya. kii shaqada diidana la leeyahay waa caajis, kii ka xumaada ma garanaysaa. marka dabaqadahaas buu xusahayaa, wuxuu furahayaa aragtidii gumaysiga uu dadka ku kala qaybiyey malayga waddanka joogta. marka wuxuu leeyahay ayagaba abuura dadku inuu caajis noqdo. waayo qofka marka aad shaqo aadan xaq ugu lahayn aad xoog ku gelisid, waxa uu shaqaysana adigu aad qaadanaysid, waxa aad qaadanaysidna wixii dhulkiisa ka soo baxay, qofku inuu meel fariisto soo ku qasbanaan maayo intuu adigu wax kuu qaban lahaa. Soomaad arag adigana shaqaalaha dibadda kala imaanaysaayo aad ku bedelaysaa asagii. marka wuxuu leeyahay macal bulshadu inay caajis noqoto ayaga abuuraya. Soomaad arag marka ay intaasoo waji u soo maraan. marka wuxuu leeyahay waa aragti ku dhisan sharciyaa la samaynayo, maxkamad baa la samaynayaa, dadka lagu xukumayo. Soomaad arag
oo hirgelinaysa ku qasbaysa shaqo qasaba cashuur dheeraada la saaraya dhulkii sida soomaaliya ka dhacday talyaanigu wuxuu la wareegay dhulkii beeraha oo dhan buu la wareegay dadkuna shaqaalay u noqdeen inta shaqaalaha u noqotona waa intii uu ka dhigtay markii dambena uu leeyahay ama askarta u noqotay waa intii ismooday inay inta kale oo aan shaqaalaha u noqon ama askarta aan u noqon ay mooday inay ka waxtarsan yihiin intii aan noqon intaa mogta qoraagu marka wuxuu caddaynayaa dadku caajis maaha nidaam siyaasadeed lagu kala saarahayay lagu gumaysanayay maskaxaha bay ahayd waxaa lagu baabi'iyey buu leeyahay jiritaanka ummadda oo dhan baa intaan magacaas la bixin ama sheekada kuturkuteenta aan la abaabulin baa raadkii ummadda oo dhan baa la tirtiray waxaana dadka laga dhacdhacshay inay caajis yihiin inay ka dambeeyaan ninkan caday inuu awood u leeyahay ka karti badan yahay wax walba samayn kara mogta marka buuggan wuxuu aragtidana waxay ku leedahay saameyn africa oo dhan waddamadii gumaysiga oo kaloo dhan annaga marka soomaali ahaan maxaa naga quseeya saameyn ma nagu leedahay waxaad arkaysaa in dadka soomaaliyeed lagu shaabadda ugu weyn oo dad geel jiro oo cawaana inay yihiin oo kale dadaan xukun u hoggaansamayn inay yihiin dadaan nidaam iyo kala dambeyn ay wax oo dhan waa wax la abuuray weeye dadkani sharciyay lahaayeen dhaqan bay lahaayeen xeerar bay lahaayeen aan lagu xadgudbi jirin intiiba waa la baabaashay waxaana lagu bedelay dad cawaana dad maaragtay nidaam iyo kala dambeyn aan lahayn dad aan system iyo si ay u shaqeeyaan ama hab iyo maamuus ay ayaga u gaara aan lahayn baa laga soo qaaday maskaxihii noocaas ahaa in badan oo naga mid ah bay qaadatay in badan baa waxay la shaqaysay gumaysiga oo albaabada loo furay inta kana laga xiray baa qaadatay in badan baa maanta waxay aaminsan tahay inuusan qofka soomaaliga kan kale uusan fahmi karin waayo ay aragti ahaan kana uu dambeeyo kana uusan ahaynin la jaan qaadi kara dunidan maanta aan ku jirno waxaasoo dhan waa caqligii gumaysiga uu ka tago weeye soomaaliya nidaamkan qabyaaladda oo jira maanta oo maaragtay xayndaabyada maamulada laga dhigtay nidaamkaasu sharcigaasu ku qotoma soomaal arag wuxuu ku leeyahay aragtidii gumaysigu intuusan tegin baa la abuuray waana marihii waxa maanta na haysta wey wuxuu aaminsan yahay qofka soomaaliga ah qof kaloo ajnabi inuu fahmi karo laakiin soomaaliga uusan fahmi karin inay kala duwan yihiin soomaaliya inaysan qaar ka mida aysan u diyaarsanayn inay dowlad noqdaan qaar ka mida ay u diyaarsan yihiin nidaam iyo systemka mogta soomaaliya arag marka fikradihii noocaas ahaabaa la qaatay oo gumaysiga uu dhigay oo dadka lagu kala soocayay hantida waddanka lagu dhacayay lagu sii gumaysanayay markii laga tegay ilaa maantadan aan joognana aan ugu jirno ma garanaysaa weliba aan waagi hore rag baa jiray dareenka noocaas la qabay oo ummadda inay isku wadaan meeshii qoys ay meel la fariisan lahaayeen ama reer ay iska dhaadhicin lahaayeen annaga inta kale rag baa u noolaa oo diidanaa oo joogay markii waxaas xargahaas la falgahayay ama xargahaas gumaysigu uu xirahayay laakiin maanta raggii ma joogaan inta horboodaysana dabinadii gumaysigu ku dhacay bay ku jiraan soomaalidu waa dadka keliya oo ilaahay nasiibka u siiyey hal qowmiyada oo wax walba ka dhaxaysa inay tahay haddana waa been haddaad maqashaan waxa lagu kala qaybinayo waa been weeye somaad arag ama magacyada loogu kala samaynayo macal waxaa su-aal gelaysaa abtirsiyaha qabaa'ilada lagu kala xiray baa su-aal gelaysa oo caddaanaysa inay soomaalidu hal oday ka wada timid ay caddaanayso soomaad arag baa soo baxaysa marka fikradihii weli gumaysigu baa in badan oo naga mida maskaxdooda ka guuxaysa soomaad arag
in badan oo naga mida ay ku shaqaynayaan, in badan oo naga mida ay caruurtoodii ka dhacdhiciyeen soomaad arag oo caruurtoodii maanta aaminsan tahay inay ka duwan tahay qofka kaloo soomaaliga ah mogta soomaad arag. marka malaysia aan usoo laabto fikirkii noocaas ahayoo lagu kala qaybiyey rag baa u kacay soomaad arag. dadkii malayga iyo dadkii hindida iyo dadkii oo maanta waa hal qowmiyad oo waddanka oo maleeshiya wax la yidhaahdaa ka dhaxaysa soomaad arag. dabaqadihii dhulalkii dadka loo boobay ayagiibaa celina laga soo ceshay, ayagiibaa sharciyaa la dejiyey, wixii oo dhan baa la kala furfuray. xargihii gumaysiga uu waddanka kala dhex dhigay baa la jaray. waddan waxaa la abuuray hal ah soomaad arag, hal qowmiyada oo malay la yidhaahdo. annaguna maanta waxaan u baahannahay aragtida noocaasa oo xargihii gumaysiga meesha ka saaraysa, hal ummad oo soomaali ahna soo saaraysa in la helo soomaad arag. marka dee rag bay u baahan tahay iyo gabdho u kaca bay u baahan tahay soomaad arag. gabdhuhu ayagu mar walba wax walba soomaaliya ka dhacay dhaliil kuma lahan soomaad arag. marka waxa ay haysato waa ragga weeye. caddaymo intaa ka badanoo loo sheegi lahaa inay jirto u malayn maayo mogta. caqliyada dadka kala qaybiyey, meelaha ku kala xiray, weliba maalmahan hadda aan joogno tacadiyadii baa dhacaya ugu xumaa, inkastoo horena ay u dhici jireen. maanta waxa keliya soo siyaaday ay tahay in la arkayo oo cajaladihii la duubay ama waxaan social mediahii ay meel walba gaarsiinayso, laakiin wax cusub ma ahan, wax hore u dhacay weeye. inta la sheegayo oo dhan hore u dhaceen, wayna dhacayaan haddaanan dad usoo bixin soomaad arag. marka casharka maanta aan uga hadlayo buugga qoraagaas maleeshiyaanka oo qoray oo la yiraahdo The Myth of the Lazy Native-ka la yiraahdo, intii rabta inay aragtidaa dhuuxda mogto. ummad dhan baa looga saaray mugdiga ay ku jireen. marka allahna waafajiyo khayrka. maanta intaasaan kusoo koobay.